والله إلما إذا فتحتي لفتي عصارنا هاي حكا إما السوشيال كي أيدي هستين عبد الشكور إيوه عبد الرحمن ناكتي أوتيجي سومالي محمد دبعته يا إستي لا يا رب الرحمن دبعته نقولين لا مصيبة نقولين مصيبة ما أنت لا إحنا جهاية عاد وصابة حميشان تجينا يجا شقان كإمادة أنا دالنا إمادة بس كان صار عوا إمادة وحكون ده هاي إنا إسفهنا مهم إنا إسفهنا أبا مهم عنقك شلون حترى نسكبت كأنه بلاس ما هي أنا بلاس كوكو فيرين عادي عنقك ما أنت كتايا رجرا لا بس أنا رجرا إلى ما حد لسان محكمة تانتك النيجاتيف إسينيسا ما أنت واحد يمكن إمادة وحواي أو حلقة عن شغلة وصبح وحواي inaan ogaado waqtiga aad ilmahayga isiinaysaan ilaa markuu ka weynaanayo waa la haynayaa maxaa ku haynaysaa markuu ka weynaanayo aniga waan shaqeeyaa aniga ilmahayga lacagan kugu siinayaa aniga ilmahayga inaa isfahanaa muhiima cabdishakuur dhibaatadaana iga haysato cabdishakuur faamilkiisa faamil fiican maaha xataa wiilasheed sabti axadda inay ii imaadahana xaq u leeyahay ilaa ila hadishidaa rabaa warqadaha aan qoranayaa adoo balan laheena ii timaada ayna waa ogaanaa balan laheena ku imaad laakiin bangigayga waa wuxuu ii soo diray email ii soo diray bangiga ilmahayga waxa jiro bangiga saddexdeeda wiil ishbaarna oo sameeyaa aniga waxa iga furan kaarkayga master kaarka waxa iga furan kaarkayga visa kaarka aasti bangiga aan leeyahay inta sir joogta taqaane okay عشان أبوسه وأنا بوسه عدها كان أقول الله مدعي ويعانوني ونقرح يعني أنا كان ما أسكر عام كان كلام راعة كان أسكر راعة بس كسيرة إذا كان لسه شهر لا نيسي شكينا بس أنا لقينا مركو حدا عذي إلا عد ما أنت كوينانا هنا أم حكوا هينسا الفريق موتوا هذا وفي عينه هاي وارد كهاي وفي عينهن أنا الصوت يقول لي سمحيتها مركو هي وادي قاعدة عبد الرحمن وهاي ترى هذا بلاس مهاية حق وحن أقول إن إله هذا الشيء ساعد أنقصه بعضه إن إله هذا الشيء حق له ما يعمل في عنه هستان تطيع عنه هايان ما الله بحنا وايه ما الله بحنا سماها إلا ما قبل المهيج مقنعان كران كوايه انت إلا أكبر المهيج ويجا مقنعان إلا وقت المهيج مقنعان إن أي شيء تدوى وأي قاعدته أنا يوقف والميه قف حنوسن ميه ودنك maxay ahayd dhibaato kama galin wadanka dambi kama galin ilaa waxa iga soo baartay bangiyada iga soo baartay inaan deyn qaatay in kale guri kiradiisa aan baxsada ku guriga ogaateen inaan gurigayga qof kiradiisa ku filan kiradiisa baxsanaa ahay maxaa waaye dhibaatada jirto waan guduuto wallahi caradi waan guduuto iga raala ahaada alla wadnaha inay joojiyaan ugu talagalay la wadnaha idin joojiyo فاتحة يقصوا مر إلهي قلب عصر اللي جوجس أو جمع سو جلسة لا عرسكي هستيقات سوينا والله ودار إنتي قلنا كسو استاجس فامل في عني هستان يعني عبد حافظ فامل كيس عادو عبد شكور فامل كيس عادو في عين فامل كهدو في عين هاي وحن كأكلها ويلكيجا sababtoo ah isaasan ku dhahay waxaan ka arki lahaa faamilka du fiican wiilkayga tusaale waxa kugu filan aan dhahay Cabdishakuur iyo Cabdiraxmaan adaa lagu keenaa waa laba cunug Cabdishakuurna waa 5 jir maanta 5 sano iyo 4 bilood uu jiraa waa 5 jir Cabdiraxmaanna labadii sano waxa uga dhiman labadii sano bishaan iyo bisha dambe uga dhiman sanad iyo 10 bilood uu jiraa okay marka isku mid ma ila dhaqmayaan waxa sababta bedeshay oo Cabdiraxmaan oo aniga markii aan dhalay iga qaatay sababta bedeshay oo hab ii siinay oo muxubiga hooyanimada iigu qabo oo hooyada ugu ahay oo Cabdishakuur ugu noqon way maxay tahay su'aashaas ma ogi saadana ogeyn waxa ka ogaan kartaa maskaxiyana ogaan kartaa sababta waa faamilku hadii aysan cunugaaga kugu darinin cunugaaga kuma nacaayo cunugaaga kaama cararayo cunugaaga dhibaato uma imaanayso ma fahamtay qalbiga xanna bas kaani way taageen oranaha ay taagna saca marka wallahi billahi taala qalbiga xanuun walaalayaal isoo duceeyo wallahi culays bay hayo
markaan dhaho ila hadla waxa maxkamaddan maanta tago waxa la ileeyahay socialka la soo heshii socialka yaa idinka soo heshii markii aan hor fariisto aan dhaho war maxaa igu haysataa maxaa dhibaato sameeyay aad igu haysataana waa tana family haysto way gataan ilmaha way gataan waxay ku gataan dhowr waxyaalood cunuga hooyo iyo aabalaanta meeshaan fariisto cunuga hooyo aabalaanta ah ee meelaha looga tago mistaalada looga tago dadka wadanka u dhashaan gato qaato dawladda lacag ay qaadataa ilmahan kalena mashruuc bay ku qaataan dawladda gadato ilmahayga waa ilmo la gatay wallaahi oo billaahi oo tallaahi baan ka hareynin horta sanadkan maanta wax badan ay dhibaato igu haayeen laakiin ma igu hayn karaan sababtoo ah dhibaato waxay igu hayn karin aniga hadda xanuunsanahay ha igeeyaan isbitaal yaa khay nolosha marba geerida dhaanta hadda aniga xanuunsanahay oo ileeyihiin waa xanuunsanta isbitaal ha igeeyo social hay soo baarteen sokolojistaan leeyahay meel kastaan leeyahay isbitaalka aakahaaga meesha loo diro dadka khamriga cabi iyo kuwa waalwaalan baa la ii diray waa soo maray anoo dhalay oo 3 maalmood dhalan baa meeshaas la ii diray waan soo maray okay waanba ka soo dhamaaday soo maaha baskii baa imaaday hadda la joogaa soo maaha ha sokolojista waa leeyahay soo maaha alxamdulillah marka ha ii diraan meel ha ii diraan haddaan xanuunsanahay cirbad ha igu mudaan haddaan xanuunsanahay baskii ma soo galay haddaan xanuunsanahay socialku ha imudo cirbad ha igu mudo anaa diyaar u ah laakiin hooyo caafimaad qabto xoogayga intaas u dhan yahay caafimaadaan qabaa dhibaato kale ay haysata ma jirto hameen iyo maalin baan soconayaa afarta hameeni baan kacaan waxaan ka kacaa hurdadeeda markay ugu macaan tahay baan kacaa afarta subaxnimo meesha aan ka kaco 5taan baxaa 5teeda kalaan gurigayga ku soo noqdaa intaas waxaan u xamaalay u socdaa waa ilmahayga sababta aan kula ahay marka maxay tahay shaqaa haystaa adiga maanta diyaar ma ku ahayn alla ciil badana alla yaa kuwaan iige Soomaali alla yaa kuwaan maanta muqdisho iiga dejiyo muqdisho kaliya xataa ma meel Soomaali kamid hadii Hargeysa iyo hadii meel kale tayaa iiga dejiyo maanta dadkaan mid kasta gurigiisa gaada ku leh waqti dheer baan samraayo